xasuus iyo waqtigeedii dhexe xilli lagu qiyaasay dhamaadkii 1965 ayaanu ku dhalanay aniga iyo islaanteeda Nagwa barqadle allaha u naxariistee dooxada dalhalay oo u dhaxaysa degmada Diinsoor iyo tuulada Ganaanax ee gobolka Bay. dhalashadayada waxaa xasuusteeda reebay dagaalkii lala galay Itoobiya 1964 iyo riwaayadii alla aamin ma iisho ee uu sameeyay abwaan Axmed Salebaan Bide oo heestani ay ku jirtay. xilligaas iyada ah aad baa loo hadalhayay riwaayadaasi iyo dagaalkii uu dalku galay maadaama aanu baadiye ku dhalanay ma jirin wax kale oo cadeynaya taariikhda aan dhalanay oo aan ka ahayn dhacdooyinka caynkaasi ah iyo xilli roobaadka ama abaareedka. waxa kale oo la oran jiray hebel wuxuu dhashay berigii hebel la dhisay xalaashan guursaday waxaana naloo wariyay in aanu xilligaasi waqti ku beegan dhalanay walow la dhaho iyada ayaa bilo ka weyneed haddana dad xilli wada kacaamay ayaanu ahayn. labadayada reer isku degmo ayay ahaayeen halkaas baana maqasha iyo weelaha iskula raaci jirnay. muddo markaan baadiyaha joognay waxaa wadanka qabsaday kacaankii kadibna waxaa miyiga noogu yimid barnaamijkii aada dugsiyada iyo ololihii af Soomaaliga ee dadka reer miyiga ah wax lagu barayay. nasiib waxaan u yeelanay in dhirta hoosteeda barashada far Soomaaliga loogu dhigo kadibna waxaana lagu daray arday miyiga laga aruurinayay oo degmada Diinsoor oo markaasi tuulo yar ahayd ayaa nala geeyay si loogu daro arday halkaas iskuul laga furay loogu bilaabayay. halkii baan waxbarashada ka galnay ilaa aan dugsiga sare xamar u aadnay. markii dambe Lafoole ayaa nala geeyay. markii Lafoole nala geeyay ee aanu qoysaska iyaga ka dheeraanay ayaan isjeclaanay kadib maamulkii gacanta nagu hayay baan ogaaday waxaana nalagu yiri 2 kuliyadood baa la idin kala geyn doonaa. muddo markaanu Lafoole joognay baan jaceylkii qarsan weynay dabadeed iyadii waxaa lagu yiri waxaa lagu qorayaa shaqalaha Dowladda waxaana lagu geynayaa Degmada Saakoow. Anigoo Arkaya ayaa maalin gaari la saaray. Anna qaracankii baan usbuuc kadib jaamacadii ka baxsaday waxaana tagay Saakoow. markaas baan dib isu helnay riwaayada dhalashadayada lagu xasuusan jiray ayaana xus jacayl ka dhiganay oo heestan baa isu qaadi jirnay. waan isguursanay alla mahadii 2 sano markaan isqabnay bay gabadhii curadnoo dhalatay oo farax ayaan u bixinay. nolol iyo jacayl baan isla soo marnay. muddo kadib waxaa noo dhashay ilmihii labaad oo wiil ahaa waxaan u bixinay Cabdikariin waa wiilka sawirkiisu ii saaran yahay. 1982 ayaa xamar dib ugu soo laabanay 4 sano kadib bilowgii dagaaladii sokeeye 1986 dibadbaxyo xamar ka dhacay oo mucaaradku ay wadeen iyo militariga dalka oo isku dhacay. xaaskayga Nagwa barqadle oo anigu aan ula baxay Nagwaluul dadkii ku dhaawacmay ayay ku jirtay dibadbaxyadaas dhaawaceedina wuxuu noqday dhaawac culus oo aan dalka waxba looga qaban karin waxaana loo qaaday caasimadda hadda Kuuriyada Waqooyi ee Bayangayaan halkaas oo ay markii dambe ku geeriyootay allaha u naxariistee. farax iyo Cabdikariin hadda waa dad waaweyn oo reer iyo caruur leh. Anna Nagwaluul naaka dambaysa ma guursan mana guursan doono eebaha u naxariistee Nagwa aamin aamin. sheekada ku dhacday ayuu qaab commenti ahaan u soo qoray aabahani mar uu heestani oo YouTube ka taala uu kaga falcelinayay. anigoo nasarkiin ayaan cod ahaan idinku soo gudbiyay. mahadsanidin.